shirjarayd oo ay maanta ku qabteen magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sanaag ayaa ay kaga warbixiyeen xaaladda guud ee gobolka Sanaag waxaana ay sidoo kale sheegeen in muddooyinkii u dambeysay socdaal ku joogeen caasimadda gobolka Sanaag isla markaana ay ku urgalayeen xaaladda guud ee gobolka dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo waxyaabaha kale aasaasiga ah waxaana ay sidoo kale sheegeen in ay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta maamulka gobolka mas'uuliyiinta maamulka degmada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba ciidamada badda ciidamada booliska waxaana ay sidoo kale xuseen xildhibaanadani in inta badan ay u kurgalayeen xaaladda guud ee gobolka waxaana madashaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan iyo xildhibaan Saleebaan Cawad Huruuse Bukhari iyo xildhibaan Maxamed Cismaan Bulqaas iyo Axmed Jaamac Cali Dheere Hereyte waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxbarashada dhaqaalaha waxaanu ka soconaa hadda xisbi iyo arrin aanu soconaa ma jirto golaha wakiilada ka soconaa golaha wakiilada ayaanu soo diray saan ugu noqono xogaha gobolka warbixinta halka aanu ka ururino golihii aanu ku celeynaa golahu markuu furmo hadii alla idmo bacdal ciidka halkaas aanu wixii aanu kala kulanay gobolka arrin ah aanu xildhibaanada uga akhriyayna gobolku waa gobol ballaaran masaafo fara badan oo marka laga soo bilaabo meel ugu dhow ilaa iyo ceelaayo inta u dhaxaysa waa gobol ballaaran waxaad moodaa wadooyin aan lahayn Somaliland aad uga fog taas waxa weeye xitaa waxaad arkaysaa inaad maalin iyo habeen kugu qaadanayso inaad soo gaadho marka Hargeysa ka timaado ilaa Ceerigaabo dhulka la soo gelisid taas runtii waxa ay kalifaysaa inay gobolkii aanu dareenka aanu qaadanay waxa weeye dhaqaalaha waxa iyaguna geestooda madashaasi ka hadlay xildhibaan Maxamed Cismaan Bulqaas iyo xildhibaan Axmed Jaamac Cali Dheere Hereyte ayaa iyaguna dhankooda ku dheeraaday xaaladda guud ee gobolka iyo dhinacyada baahiyaadka waxaana ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay waxqabad hor leh ka geysato gobolka وتن يمركي ورئيسية ترحل دوانا وانت الليك تن ينتي لغا دورتاي قبل كاسناك اي سعودال كوي مادان عاصمة دو قبل كاسناك كواسيو انت بدنو تشيد كسعودال كودو يهي وكورجليد حالة دقود قبل كاني عبد الناصر خالد سعيد تلفزيون كعالمي قاية سومالي channel مقالة عيرقابو